السلام عليكم لمن أصحابتو سلامنتين مeel kasta dunida ka joogtaan kusoo dhawaada channelka xaydartay oo cashirka afritubnaad taxana oo ku saabsan barnaamijka Sony Pro 16 casharaas oo si fiiro uga baxay channelkayga waxa idin soo jeedin doonaa anigoo xaydar maanta cashirkan waxa uu ku saabsan yahay qaabka dib ugu edit garan lahayd intro template adigoo isticmaalaya barnaamijka Sony Pro 16. haddaynu cashirkeena guda galno maanta waxaanu ka hadli doonaa qaabka ugu samaysan lahayd intro adigoo isticmaalaya template hore loo diyaariyay barnaamijka Sony Focus. waxaan idin dhigay description-ka halka aad kala dhigi kartaa intro aynu ku samaynayno tusaalaha kuwa kale badanna waad heli kartaa adiga oo kala baxay hadba noocaad rabtid waliba waxaad ka helaysaa khaas ahaan channelkan ayaad ka helaysaa channelkan waxyaalo badan ayaa lagu diyaariyay playlist-ga tagaysaa kadibna waxaad ka helaysaa introyin low tags badan outro waxyaalo badan oo free ayaad ka helaysaa halka waad la soo degaysaa kadibna waxaad samaynaysaa magacaaga iyo loogadaada ayaad gelinaysaa iyo channelkaaga magaciisa kadibna sir ayaad isticmaalaysaa render ayaad ku samaynaysaa free ayaad isticmaali kartaa marka haddaynu cashirkeena guda galno marka ugu horeysa aad soo dejiso intro sidatan ayuu kugu soo baxayaa extract ayaad ku samaynaysaa kadibna folderkan ayaa kugu soo baxaya folderka gudihiisa markaad sii gashid waxaa kugu jira waxyaalo badan marka kan ayaynu isticmaalanaa inagu Sony Focus ayaa tagaysaa kadibna waxaa leedahay file open kan ayaa furaysaa markaas saa dhahdo okay ayaa leedahay waxaa kuu soo bixi doona template kan la diyaariyay ka ayaynu wax ka bedelaynaa logo iyo cod iyo text iyo waa inta hore loo soo diyaariyay marka adoo waxaad samaynaysaa bas logadaada ayaad ku bedelaysaa logada kale qoraalka ama magaca channelkaaga ayaad ku bedelaysaa codka toos ayaad isticmaali kartaa waa free waxaas oo dhan marka waxaanu sameynaynaa marka ugu horeysa waxaanu bedelaynaa logada waxaad imaanaysaa project mediahaaga kadibna waxaad leedahay logada ayaad dul tagaysaa right click ayaa leedahay kadibna waxaad leedahay replace marka dhahdo waxaad tagaysaa meeshii logadaada kugu jirta logadeedii hore ayaan rabaa inaan ku bedelo marka waan ku dhufanayaa kadibna open ayaan leeyahay waad aragtaan logadeeda ayaa meesha lagu bedelay haddaanu furno aan daawano eeg waxay noo hartay magacii ayaa noo haray magacii markaad tagto layerka magacu ku qornaa waxaad tagaysaa halka ayaa furaysaa xogaa waad weyneynaysaa si aad u aragto generating media kadibna okay ayaa ku dhufanaysaa waxa kuu soo bixi doona halkaa markaa kuu soo baxdo magacaaga ayaa ku qoraysaa si yar oo fudud kadibna waxaa leedahay cancel kadibna waxaan ku sameynaynaa rendering-ka aynu hore usoo baranay cashirka hore kusoo baranay ayaad ku samaynaysaa si fudud kadibna waa isticmaalaysaa haddaan rabin intro-kana kuwa badan ayaa jira channelkii aan ku tusay ayaa tagaysaa kadibna waxaad rabtaa aad kala soo degaysaa iyo kuwa kaloo badan channel kaloo badan waa laga yaabaa inaad hesho internetka aad barbar kaad rabtid ayaad ka helaysaa low tagskan insha Allah waxaanu ka dhigaynaa cashirka dambe low tag aan idin diyaariyay ayaa jira waan si khaas idin ku diyaariyay kadib kaas ayaa si free ah ku isticmaali doontaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan kariim waxaanu balanaa cashirka xiga insha Allah